بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سو دواها channelkeena farxiya ku shiin asxaabta qaaliga dhamaantii waxaa idin leeyahay ciid wanaagsan ciidii mashquul la iskaga jiro ma fahanteen waxaan rabaa inaan idin la wadaago horta ku karka cusub oo maxaan ku raadaa rabaa inaan xiro waxaan rabaa inaan idin la wadaago quraacdii ciida qadadii ciida martaqaadka adduunka muuqaalka dhameystiran uga faa'iidaan ku karkaan ayaa maxaan ku raadaa rabaa inaan isticmaalo kuukarkan kuukarada waxaa waay dhagaxa la geliyo korna waa saaran kartaa dhagaxana in la jaro oo la geliya loogu tirigalay saarta oo isticmaali kartaa wuxuu wataa baterigaas koronto lagu ma xiriirinayo baterigaas aad gelinaysaa marka rabto inaad shidid taraqna uma isticmaalaysid korontona looma isticmaalayo daboolkaas kore culays waayaan ku alaabtan caadi maahan intaas kadib waxa sameynayaa waxaan rabaa marka hore inaan gaaska ku xiriiriyo oo aniga la xiriirsado ma sha Allah tabarakallah hadii aad baratid xiriiritaankiisa aad iskaga fudud yahay qaybtan kore ayaan ka qaadayaa waxaan rabaa inaan daba gadiyo oo bateriga geliyo bateriga waxa waay korontada meesha ku xiriirin lahayd ama taraqa u isticmaal lahayd baterigaas ay u isticmaalaysaa baterigan hal xabal la geliyaa bateriga halka laga geliyaa bateriga marka gelisid waxa u baahan tahay tuubada inaad halka ku xiriirisid tuubadii marka ku xiriirisid waa kaas automatic caadi maahan asaas isku shidaayo dabkiisana laciif ka dhigi kartaa waana dheereyn kartaa waad ku badin kartaa xitaa zaid ka dhigi kartaa dabkiisa aad u badan yahay maxaan ku raadaya ku karkaan muuqaalka dhameysan insha Allah si aad uga faa'iidaan soo dhawaada daawasho wanaagsan ku karkaad sheekis waa soo dhamaatay dabkiisa daarad inaad laciif ka dhigtid waa kaas gudahaas oo kaliya ayuu ka shidan yahay hadii aad inaad dheereysid saddex meel camal ayuu ka shidmayaa dhinaca kale toorto qurux badan toortadii ciida ama keegii ciida aad u fudud aad u qurux badan ayaan rabaa inaan idin la wadaago insha Allah marka hore waxaan ku bilaabaneynaa quraacdii ciida wax kale ma ahan waxa waay toortadan buskudkii xalwadii kackaci waxyaabaha qaar way noo diyaarsan yihiin waxaan rabaa inaan marka hore idinkaga faa'iideeyo doorshadana ujeedaan insha Allah keegan waa noo diyaarsan yahay marka hore keegyo noo diyaarsan keega waa keega wareegaas ujeedaanba waxaan rabaa inaan ka dhigo keega afar geesta gabadha dirista ay caawinayso waxa sameeynaa marka hore afarta dhinac ayaan ka jareynaa keega hadii aad wareeg sidiisa u dhaafaysaa hadii aad keega afar geeska ah waxa sameeynaysaa waa inaad afarta dhinac aad ka jartid oo asla sintid keega ama doorshaha markaad karisid waxa la rabaa qabow inuu noqdo meel dhigtid markuu qabow noqdo oo kuleelka uu ka baxo ayaa la rabaa inaad qurxisid oo aad habaysid kadib waxa soo qaatay mindi waxaan ka dhigayaa laba qayb si idin muuqato qaybtaan ayaan dhinacaas u dhigayaa bismillaahir rahmaanir rahiim oops waa ay kala jabay laakiin dib ma lahan midkan kala go'ay ayaan hoos marin doonaa midkaas kale ayaan kor soo marinayaa midkan ayaan dhinac u dhigayaa marka hore kadib daboolkaas u saarayaa kadibna soo ugu soo gudinayaa kii kala go'naa ayaan ku bilaabaneynaa wax kala go'ay hadaba wajirsamahan waa kaasa ma sha Allah intaas kadib waxaan soo qaatay whipping cream oo keega loogu tirigalay keeg marka rabto inaad sameysatid keeg aad u qurux badan waxa la rabaa inaad creamka aad ka badisid creamka hadii aad ku yareysid sida adiga aad u maxal dhijir uma soo baxaayo intaas kadib qaybta labaad ayaan dul saaray si idin muuqato kadib waxa sameynayaa creamkii ayaan marinayaa kor iyo labada maxaan ku raraa afarta dhinacba inaad si fiican u marisid ayaa la rabaa creamkan ha ku yareynin waa inaad ka badisid keeg qurux badan hadii aad rabtid kor ilaa iyo maxaan ku raraa afarta dhinac ayaan sida uga soo marinayaa saa ujeedaan waxa la rabaa inaad isla sintid creamkana lama rabo dhinac inuu ka banaanaado oo keega uu ka muuqdo dhinac uu ka buuxsamo oo macnaha creamka ka buuxisid waxa dhanba inaad sintida la rabaa oo isla wada sinaadaan kaal iska arag intaas kadib waxaan soo qaadanayaa birtaas oo loogu talagalay keega in ay kugu yeesho line calaamadahaas inay kugu sameeyso macnaha oo creamka qurux uu ku soo baxo af minshaar waaye intaas kadib waxaan soo qaadanayaa whipping creamka oo bacda ku soo shubay saas quruxda badan ayaan u soo hagaajinayaa kor iyo hoos dhinacyada ilaa iyo kor sare u soo wareejinayaa ujeedaa wuu fudud yahay wuuna qurux badan yahay creamkii markaan soo wada mariyo asxaabtii ugu cusub qalbi furan iyo waliba niyad saafi ah soo dhawaada channelka hore u gala waxyaabo badan ayaad ka faa'iideysaan insha Allah toorto qurux badan adoo gurigaaga jooga ayaad saa adiga jecesha u sameysan kartaa intaas kadib afarta dhinac
ayaan saa u saarayaa maxaan ku dhahdaa creamka halkaas dhexda oo maxaan ku dhahdaa aan u saaray sharaxaadaas waxa sprinkle waxa loogu talagalay cake in lagu sharaxo markaan ku dadaadiyay kadib waxaan soo qaatay geedkaas oo ku qoran maxaan ku dhahdaa ciid mubaarak halka dhexda u gelinaysa marka saa u habaysid firinjeerka gelinaysa hal saac kadib ayaa la isticmaali karaa ujeedaan ma sha Allah tabarakallah quraacdii ciid ugu dambeyntii waa soo diyaarsanay buskudkii xalwadii maxaan ku dhahdaa kackaci hore ee u soo dhigay channelkayga oo hore u soo galiyay laakiin waxa rabay inaan idin la wadaago toortadaas inkastoo waqtigu ii saamixi waayay ciid ka hor aan idin soo galin lahaa laakiin waa iska mashquulay waa dareemi kartaan ciid markay soo gasho mashquulka iska badanayo ugu dambeyntii waxa rajaynayaa inaad ka faa'iideen quraac isku dheelitiran laga sheekeyni karin ma sha Allah tabarakallah waa kaasa martiqaadkan aad ugu haboon sheekadii quraacda waa ay soo dhamaatay waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iideen dhinaca kaleeto hilib ari waay jeex waay neef jeexiisa meel dhahay waay jeex dhama karin rabo waxaan rabaa inaan wax yar le ka kariyo digsigan dabka saaray biyo ayaan ku shubay kadib waxaan ku darayaa xawaajiyada markaan ku daro waxa kale ku darayaa barbarooniga shiidan waxa kale ku darayaa wax yar oo cusbo ah wax yar oo sacfaraan ah toon shiidan sacfaraanka waxa waa hilib kisto kala yar oo qurux badan ayuu yeelayaa markaan hilibka kariyo waxaan rabaa bariis inaan kariyo oo maxaan ku raadaa jibsigii waxyaabaha dhan lagu habeen la inaan kariyo bariiska iyo hilibka saan u sameeyna hadii u sameeysid aad ku anfici doona ciid oo kaliya baahan waqti walba u baahan tahay samahan intaas kadib markaan ku soo guro dabkan saaraya dabka markaan saaray si idin muuqato waxaan ku soo daray maxaan ku raadaa heel iyo dhagayaro si uu caraf uga dhigo dhinaca kaleeto waxaan soo jarjaray karooto iyo jibsi waan soo dhaqayaa markaan soo dhaqo kadib waxaan ku darayaa wax yar oo sacfaraan ah kalarka oo jaalaha ah intaas kadib wax yar oo cusbo ah waa isku qasayaa jibsigii iyo karootada hadda noocan waxa u maleysaa macnaha isku kalar waaye kadibna waxaan rabaa inaan sameeyo jibsi kale cad jibsi kale macnaha oo aan kalar ku darin waan sameynayaa intaas kadib jibsigii sheekadiisa ay ku soo dhamaatay markuu bislaado ay ku soo laabanayna insha Allah hilibkii si fiican ayuu bislaaday maraqan ayaan waxaan rabaa inaan bariis ku kariyo jibsigii hadda dabka waan ka soo dejinay saa ujeedaanba dhinaca kale digsiyan dabka saaray waxaan ku soo shubayaa saliid kadib waxaan ku soo darayaa basal laba xabo oo sidaas u soo jarjaray warwareega basashii markay bislaato kadib waxaan ku soo darayaa xawaaji isku dardar hal qaado kadib waxaan ku soo gadinayaa maraqii oo maxaan ku raadaa hilibka maraqii hilib markaan ku soo gadiyo hadda wax kale uma dhino markay buraan oo ku soo laabanayna insha Allah dhinaca kaleeto baastada aan rabo inaan kariyo baastada oo macmacaanka laga sameesto digsiyan dabka saaray digsi marka dabka saartid soo gaar ku shubaysaa ama sixin kadib baastada ku soo gadinaysaa ama saliid isticmaali kartaa intaas kadib baastada waxa waa saas oo walaaqaysa kor iyo hoos kalarkeeda kafeega cabal inuu noqdo raba hadii ay ka gubato waxa waa ma isticmaali kartid waayo cuntada ka haleynaysa bariiska raba inaan ku dhex daro baastadaas biyihii way bureen waxaan ku soo daray bariiskii si idin muuqatay baastadina diyaar waaye baastada caadigeed ma ahan waa baastada macmacaankii waxyaabaha laga sameesto markay sida u gaduudato waxaan ku soo darayaa bariiska ku soo dhex darayaa waxaan rabaa inaan isku kariyo alaabtan caadi maana kale dhadhankeeda laga ma sheekeyn karo ma sha Allah cusbadeed iska tijaabi miikaan dhaxmarnaa markay bislaato ayaan ku soo laabanayna insha Allah hada diyaar waa ku soo laabanay waa ujeedaan bariis furfuro kaale iska arag xabadba meel aan ku dhahay laga ma sheekeyn karo caraftiisa waxaan ku soo darayaa bakeeri haafkiisa oo zabiib ah qaadada dhaxmarnaa daboolkan dhab ku siinayaa kisto waxa waa qoqoyaan uu leeyahay waxa la qoqoyaan markuu ka dhamaado inaan ku soo laabano insha Allah bariiskii sheekadiisa ay ku soo dhamaatay hilibkii sidoo kaleeto baastadan goonina oo karin kartaa bariiskuna ku dhex karin kartaa hadda waa soo diyaarsanayna qadadii saxankii markaan bariis ku soo gadiyay waxaan ka soo saaraa ansalaatadii waxaan ku soo dadaadinayaa jibsigii macal karootadii kadib basal oo wax yar aan soo karinay dhinaca kale hilibkan soo saaraa ma sha Allah tabaarakallah dhamaantii waxaan ku codsanaa muuqaalkana like saartaan si share gareysaan waa ku maasantiin daawashadiina commentidiina iyo waliba dhiirigelintiina muuqaalkana share gareeyo mahadsan